kulankani ay maanta isugu yimaadeen ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen qoondada haweenka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan doorashada xubnaha aqalka sare oo doorashadoodu ay ka socoto maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoona kulanka haweenka kadib ay warbaahinta la hadleen qaar ka mid ah haweenka qaranka oo sheegay maamul goboleedyada dalka qaarkood inay haweenka siiyeen qoondadooda madashii qarankana lagu saxiixay 30% in maamul goboleedyada dalka ka jiro sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Puntland iyo Hirshabeelle hadda la dhiso cusub inay gabdhihii soo saaraan waa 30% codsi ma aha waa wax sharci ah oo ay ka gacantooda ay ku saxiixeen maantana ma ogolaan doono inay gabdhihii kootadoodii rag ku fadhiistaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada markii madasha wada tashiga fadhiyeen ayaga saxiixeen in gabdhaha 30% ay leeyihiin marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Puntland oo hadda aan sugayno wixii ka soo yeero aan rabaa inaan u mahad celiyo ilaaha mahad leh qaasatan madaxweynaha Jubbaland waa madaxweynihii aan ku tashanayno isdheheynay haweenku wuxuu ka yaqaanaa haween badan oo soo saara maantana waa u jeedin aqalka sare gabaraha ka soo baxday lagama dhageysanayo anaga hadii haweenka aan nahay gabdhaha ku dhiman aqalka sare ee 30% oo madaxweynaha saxiixay Jubbaland inuu gabdhihii keenaa laga rabaa in aan mataqaanaa aan ka hadalno arinta doorashada dadban ee aqalka sare ee dalka ka socdo marka waxaan soo jeedinaynaa inta gabdhaha ku soo dareen waa amaanaynaa waa u bogaadinaynaa inta aan mataqaanaa gabdhihii xaqirayna waa ka soo horjeednaa waxaan kaloo meeshaan aad ugu mahad celinaynaa uguna hambalyeynaa dawlad goboleedka Galmudug amaan iyo hambaliye meeshaan ugu direynaa dawlad goboleedka Koonfur Galbeed doorashada aqalka sare oo ka socoto Kismaayo Jubbaland in gabdhaha lagu xaqiray gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuule Sheekh Axmed Gabale ayaa iyana maamul goboleedyada dalka ku amaanta in haweenka Soomaaliyeed qoondadooda ay siiyeen halka qaarna aysan wili bixin qoondadii haweenka doorashadii shalay ka dhacday Jubbaland ee aqalka sare meeshii laga sugayay 30% waa la wada og yahay hal gabar oo kali ah ayaa ka soo baxday halkaas kursigii gabadha kale loogu tala galay ee ka iimaanaysay Jubbaland waa banaan yahay ama nin hal la keeno ama cid la doono hal la keeno laakiin kursigii loogu tala galay labadii gabdhood oo laga sugayay alxamdulillah gabadha soo baxday waa ku fariisanaysaa kursigeeda insha Allah laakiin gabadha dhiman Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jawhar